tira Soomaaliland wax jira maaha waxa weeyaan Soomaalilandnimada waa in la diido taasi waa aqliga diidaya intaan sharciga la gaarin waa wax jira weeye Soomaaliland waa wadan jira waa dhul jira dad baa ku nool dawlad baa ka jirta nidaam baa ka jira diin baa ka jirta magaaladaada wadankaaga jeclow wanaagiisa ka shaqee ilaasho fitrahan wuxuu jeclaanay inay meeshu ku dhashay ee uu ku barbaaray sharcan wuxuu jeclaanay inuu beledkiisu yahay beled islaam dhul islaam inuu yahay ayuu jeclaanay oo uu wadankiisu sidoo diinahan iyo adduunyahan buu horumari lahaa oo ka shaqeeyo cid dhibaato la doonaysa ka hortag dadka qaar kood baa laga yaabaa inay doonayaan ka dhaadhiciyaan wadankaaga inaad baabiiso oo aad qaxdo adigu wadankaaga u burburo si wax taa ka dambeeya si loo gaaro wara Soomaalidu inay midowdaa waa muqaddas muslimiinta dhammaan inay midoobaan baa wax fiican laakiin maxaa lagu midoobayaa ilaahay diintiisa hada shariicadu diiday khuruujka al-khuruuj ala al-hakim dadka abaabulaya lacag lagu bixiyo in dawladda halka ka jirta laga soo horjeesto hal abaabulo dadka lagu wacyi galiyo كل هذا غلط ومخالف للشريعة وبلده النبي عليه الصلاة والسلام بلد كيسي ودن كيسو مكوي يعني هلك وكل شيء وكبر باري إنه رشي سإنت أبدا وكقاطع ومكة وصدح إيا كنتم صندوات بالنبي عليه الصلاة والسلام مكة كنا ولا أفرتنا اللي هو وحيون إيا صدح 8 صندوات أو النبي أها نقول كإلهنا رسولك عليه الصلاة والسلام مكة يوتش على ومحو كتش على هذي مكة لأنها بلده ووطنه وبلد كيسي ودن كيسي وأنا أمر فطرية وضدك إلهي كباري بل حتى حيواناتك فكميشه وكل شيء وكبر باري إنه دولك كلاو كتش على هذا وميلك لها دو تاقو هلك أوسو بهليوبو وميشا كلا غربو كدريمو واجينينيمو كدريمو marka qariib uu ku noqonayaa meesha kale waxaanu jeclaysanayaa inuu meeshiisii uu ku noqdo ilaahay rasuulku kaleey salaatu wasalaam yiri as-safar wa qit'atun min al-'adab yamna'u ahadakum ta'amahu wa nawmahu fa idha qada ahadukum nahmatahu falyu'ajjil safarku waa gobol cadaab kadeeda qofka cuntada iyo hurdada waxa soo dhan buu diinaya midkiin markuu dantu safara ka lahaa u dhamaysto هدك دقوه هراه ونقد الدكيس عيب ما قفكم مركا ودن كيس المجعلات شعيل كاس وشعيل شرعية وشعيل فطرية فطرهان وحوت شعلانة يعني تمشي كل شيء وكبر باري شرعا وحوت شعلانة إنه بلد كيس وياهي بلد إسلام دول إسلام إنه ياهي أيوة شعلانة شعيل كانوا حكروا إذا قفك ودن كيس إنه إلى الشر وودن كيس وصيدوا الدينهاني الدنيان بو هرمر لها وكشقية وودن كيس إنه بابا أما دبعتها أي كنا عدو إنه كراهيسني ولبسنا يو سلامر كاروا إنه كهر تجيوي كما قال هذا ودن كاجا شعلو وناجي سكشقية إلى الشر وشيء دبعتها كإلاني عندي dhibaato la doonaysa ka hortag dadka qaar kood baa laga yaabaa inay doonayaan ka dhaadhiciyaan wadankaaga inaad baabiiso oo fitna aad ka rido oo aad qaxdo adigu wadankaaga u burburo si wax taa ka dambeeya si loo gaaro wara Soomaalidu inay midowdaa waa muqaddas muslimiinta dhammaan inay midoobaan baa wax fiican لكن محل لكم يدوبيا ده إلهي الدين تيس والتعاون على البر والتقوى أبو إلهي من نموذج إلهي سبحانه وتعالى ما أمانه ومن لماذا حق لكم يدوبيا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أي كذا الله يسأل الله يسكع الشضا وناج الدين دي الدنيا بقى سأل الله والتعاون على البر والتقوى مركز ست هلا وجاره وأنا وضن كعجب باب بصورته ترى Soomaaliland wax jira maaha waxa weeyaan Soomaalilandnimada waa in la diido taasi waa aqliga diidaya intaan sharciga la gaarin waa wax jira weeye Soomaaliland waa wadan jira waa dhul jira dad baa ku nool dawlad baa ka jirta nidaam baa ka jira diin baa ka jirta inta wanaagga jirtaaba inay seeda u jirto ay si kordhaabeen doorin wixii inta wanaagga inoogu soo biiraya
iyo ciddii inoogu soo kordhinaysa waynu ka ogollay laakiin cidda doonaysa intaa inay naga baabiiso kuu doonaya ha noqdo fi daakhil aw fi lkhaarij gudaha ha jooga ama dabadda ha jooga ka aqbali mayno wahaakada kullu beled islaami dhul kastoo islaamina waa saas oo kale halkanoo qura maahae